توم يجري ما حسيت markuu Tom dhahay dhulku afka intuu tago dib u soo noqonayo aniga ninkii baa la soo qabtay sheeg wiilka waxa dhashay saaxiibada aniga saaxiibaday iyo ninkayga isla habeenka waliba isla saacadaas kadibna adiguna gabadh baad dhashay kadibna war sheeg aniga ninkaaga lacag badanisi wuxuu guri ilmahan ayuu dhashay inuu tuurkana laabta u gali mar haddaan neersan meesha ka marka ilmahaygi ma xasuusta laakiin ay gabadh ahayd baan ogahay wiilkan saasan laabta kuugu geliyay laakiin adigu ma dhalin aniga ilmahayga wuxuu dhahay dhakhtarka hortiisa meesha qashinka la dhigo intaan dadka iska eegay yaan halkaa dhigay taajirkii baa dhahay u kaadiye sanadku intaa ma aha bishuna intaa ma ahayd habeen magacaas leh oo maalintaas ma ahayd saacadu markay intaa ahayd anoo shaqo xilli dambe ka soo baxay roobta ayaan wadadan dhakhtarka horkiisa maray ilmo yaro ooyintiisaan maqlay daaqadan isku furay waa soo degay ilmo yaro duuban buu ahaa gabadh buu ahaa waana gabadhayda Linda sidaasaan ku korsaday soo ma laga yaabaa Linda inay tahay gabadhaada Linda gabadhaydi miya gabadhu waxay tiri ilaahay ma intuu isoo gamay oo isoo giraangiriyay oo isoo gilibaangilibay gurigii gabadhaydu joogtay guriga isoo galiyay waa laga yaabaa dhiyaan haddana hala diro Layliya Linda waxa la 100% adaa dhalay hadda waa 100% adigaa dhalay gabadhaydii leen muxuu goosay maxaan niri gabadhan first time gabadhan aragtay bay tiri maamo hadalkii ugu horreeyay ka soo baxay ilaahay baa ka hadlinayay ma istiraahadeen aniga ninkaygii ilmahaygii gurigaygii saasoo ku baabaa asaga marka uu calaalay wuxuu dhahay saaxiibaday waayo waa tii aniga la saaxiibkahay saaxiibaday baan taladeeda aaminay iyadaa igu tiri inankeenu haynoo kore gabadha tuur ayadaa igu tiri maxaan ku dhahay curyaan iska dhig noloshaydii oo dhan iyadaa burburisay inkaar ku noqday inkaar allaha ku ridee boolis baa meeshii soo dhex galay ninkii ilmihii iyo wixii adigu waa la daweeyey taajirkii iyo gabadhii sidii bay isku aroosteen ilmaheeda sidii bay ku haysatay waxa ku dhahday ilmaha yar labada qof ee dhalay laba qof rajala maaha oo waa dadka daraagistayaala haddaynu hayno ka waran waan ogolahay wuxuu hay soo awalba adigu 7 sano maad soo garsay ilmahaaga uu la mid yahay soo qaxayso hayso halkan labada waxbarasho kaga darayna adigana hambaliyo guri weyn oo 4 biyaano ama 4 dabaq ama 4 floor meel la dhihi jiray baan kugu qoray magacaaga adaa iskale iyo waxa dhex yaalaba labadii caruur ahaa iyo labadii qof ee dambe afartood halkaas ay ku lamaana ku noqdeen labadii caruur ahaa yararka iskuulka ka dhiganeen labadii qof ee wax khiyaamayna waxay lacag ka dhaceen meelihii ay ka shaqaynayeen 90 milyan lacag u dhiganta labadoodiiba xabsi baa loo jaray midna 20 baa lagu xukumay isagina waxa lagu xukumay 25 sano noloshina halkaas ay ku soo gabagabowday gurigay markii waa ka halkaas sheekada ku dhamaatay ka sheekaya